buriyo heed ahelo iyo cayaar sameeya haybad iyo hadhaale baanu hindisnaa quraan buriyo heed ahelo iyo cayaar waa nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta kow waa halka aan sisam iyo teemba ka bartay waxaa ahayd ciyaar dhaqameed ah aynu ciyaarayno oo 7 ama 8 shay ahayd fanaanka maxamed cali burco waxa uu ka mid yahay fanaaniinta waaweyn ee reer Soomaaliland kuna dhaqan magaalada Hargeysa waa fanaan waaya arnimo durugsan u la dhinaca fanka isla markaana fanka ku jiray muddo ka badan 40 sanadood barnaamijkeena fanka iyo suugaanta ayaan ku soo gudbin doonaa taariikhda fanaankaasi iyadoo dhawaanay suurta gashay in aan la yeesho waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo u badan dhinaca fankiisa iyo waliba waaya aragnimada uu u leeyahay fanka muddadii uu ku jiray oo ka badan ilaa 40 sanadood hadaba waraysigan oo jecelahay barnaamijkeena fanka suugaantan ku soo gudbiyay qaybtiisa hore ayaa ugu horeen waxaan ku bilaabi doonaa maxamed cali burco oo ka jawaabaya halkii uu ku dhashay isla markaana ku soo barbaaray aad baad u mahadsan tahay waxa aan ku dhashay magaalada burco oo magaalada madaxa gobolka Togdheer taariikhdu misida baa lagu qiyaas karaa taniyo reer magaalada baasha way diiga laakiin waxaan qiraa'ay niyo inaan ahayn waxaan meesha ku dhashay 1956 halkeed ku barbaartay isla barbaarinteeda burco burcan ku barbaaray waan gartay waxbarashadii bilowga aad ka gashay burco hoose dhexe shaqaynta burcan ka bilaabay waan gartay marka ilaa heerkeebaad waxbarashada ka gaadhay waxa aan ka gaaray runtii anigoo form 2 markaa ka enroll galay oo form 3 inaan gala ahayd ayaan waxaan u talaabay galar xagga iyo maasimada galada dooxan tiri waxaan jeclaystay labadii sanadood kala dhameeyo beerga waxaa jiray correspondence halkan inta jaamacadaha ma lagu sameeyaa through internet waxaa jirtay college la BTC waxa markaa la soo gaariyo waxa British Territorial College oo ka mid ahayd laan ay leedahay Oxford University oo ay ugu talagashay meelaha markaa sida Afrika ay u banaantay Ingiriis xukumo inay dadku toos uga baran karaan dadna marka xiriir kale ma jira Boston bay Boston ashaqada la soo dhigay imtixaanka suuda Boston bay ahayd marka Beirut bay ka furay oo iidow Beirut baa marka kala xiriir dadna waxay leeyahay hadal iman karto welcome oo iman karto wakaale oo adigu de khalaas ka gidib barkaaga soo qabto Allah xama abaa marka noolaa waxay uga qaaday Beirut iidro waxay marka 2 years waliba college imtixaan bay iga qaadeen correspondence ka hor haba xiriiriyeen markii aan 2 years markaa damcay in college ba degree ku qaato dadna 1 year markaan dhameeyay ayaan ku waniyo shahaadada intii goosooniseen ka kale oo meesha iska balwad bandeed shabash bandeed waa bay little barisi wax la oran jiray waayo 69 ka dhamaadkiisii baa markaan meesha tagay baxbashada markaan intaas sii korodhay waxaan labo ii korodhay iskoola bulisiya oo aan in badan ka soo bartay sharciyadii dalka muddo sanadii 8 bilood markaan bulisiga waxay ahayd 1971 yaraantaadii maxaad jeclayd xiisayn jirtay yaraantaydii waxaa jiray dugsi dhexe oo kasta oo ku yaala Soomaaliland ama intii markii hore la oran jiray British Protectorate maxkamada Ingiriiska waxa uu lahaan jiray koox arday ah waa dugsiyada dhexe oo kala ku hoosmaraya ku sharmaanay oo la Boy Scouts ay lahaan jiray waxay ahaayeen 3 arday afar meelood oo min 8 waa sida ciidamada u dhisnaan yani koox waliba waa 8 afar kooxood min 8 wala 2 iyo taliyahooda oo ka 3 oo troop leader midkii kooxda ay watay troop leader waxa ka shaqeeyay macallimiinta kamida oo la scout master ninkii maamulaya marka waxay caado u lahaayeen in habeen kastoo jumca ah magaalada ka baxaan waa kuwa boarding ka ku jirin ee dhiga
barco kale habeenka goobta khamiista ka araabi jiray meel adigu ilaa 10 kilomitir u jirta magaalada tegi jiray oo kayna idlaa halkaas la degi jiray habeenkii halkaas u hoyin jiray deesku waxa saad buluuga waxay oo isguulayaashu caalamada qorta ku xiran jireen oo kala xiran jiray laakiin laba midaba oo in huruuda iyo in buluuga oo la isku taray suun gaar ah oo dibadda laga keenay ku qoran tahay Boy Scouts sharci xeer gaar u lahaa habeenka ilaa waaga markaa la soo joogay meesha ilaa kooda labada waxa lagu caawin jiray oogta dabka la shido marka la ilaaho qof baarlama oo kale reermigu sidii jiray soo bidhaashay oo kale oogtaas siinaysa ayaan filan jiray oo saddexdii markaa meesha tagi jiray koox baa loo diiday xaabada baa la keenaya waa la shidayaa naara afuuf in la ilaaho ayaa wuxuu ku shaqan leeyahay dabka ololintiisa dabkaas isma dhimayo xaabadina waa loo soo buuxiyay galabta ilaa kooda ilaa labada laga gaarayo waxa la ciyaar dhaqameed si marka la bilaabo lixdii barka marka shaac mudawada todoba ciyaaraha sagaalkii barka ayaa la qaadanaya nasiino waa la fariisanaya afartii kooxood baa loo kala fariisanaya naalafuufkii kuug baa ag jooga kuug markaa nasaniyo wuxuu diyaariyey shaah bigaysa iyo roodhi qof waliba wuxuu la siinayaa xabad roodhiga iyo koob shaah oo bigaysa inta la fadhiyo waxa afartoo kooxood ku tartamayaan heeso kow waa halka aan sidam iyo teemba ka bartay waxa ahayd ciyaar dhaqameed aan ciyaarayay oo 7 ama 8 sayid ahayd ciyaar 7 ama 8 baa sayid ahayd halkaas durbaan baa la tuurayaa jaantii baa socota saacadkii baa socda teembada horta qofka halkaa uu ka qabsanaya dhammaan shayga waa la qaadayaa waa la fadhiisanayaa tartan heesan durbaanka caadi sida boongaha caadiga loogu tumo ayaa loo tumayaa oo dadka qaarna lagu jirtay waaniga lagu tumay halkaasaan ka soo bilaabay waan jirtaybo oo aan aad u xiisayn jiray ciyaaraha iyo heesaha labadaba Scouts-kan ku jiraan keenay inaan xiisaha badan ka helo iyo caawinta dhalinyarada sameynaysa ee midka heesaha waqtigaad xiisayn jirtay maxaa ka mid ah xasuustaada Allah yarxamo maxamed nuga ka mid ah oo macallin ahaa oo aan weliba anagu visita Boy Scouts isagoo oodweyne macallinka ah oo isagoo scout master oodweyne dugsiga dhexe boardina oodweyne aan visit ugu tagnay mar waan xusuusanahay markaana isagu si uu soo aanbaxay markaa u soo aanbaxay laakiin ilaa laba suwaalo oo macallimiinta waxaa ahayd koox gaar kooxda macallin exact kuwaasuu ka mid ahaa heesaha uu qaadi jiray maran xalayta seleloon muddo hiifay gogoshii oo nidigtaa kaadayey oo aad ka maqan tahay on bidix miiliilay meelaanad joogin on meela dheeriyo marnaday hortayda masanuun shay inayay socodkaad marshayso waxaan kugu masalaa jeexaygii midigay sida mayl badweyniyo mawjadaha soo hira gudkooda marayo soo muuqanaye masanuun shay inayay socodkaad marshayso waxaan kugu masalaa jeexaygii midigay sida mayl badweyniyo mawjadaha soo hira gudkooda marayo soo muuqanaye heesaha uu qaadi jiray waxaan xusuusanahay oo kale hees inaan nurdiye qaadi jiray
oo nin dhalinyarada ka mid ah scoutkii oo habeenadii qaadi jiray heesaan aad uga heli jiray bay ka mid ahay waxay ahayd iyadoo habeen badaa intaan soo baraarugay walaakeyga ma qaadi jiray inaan gruubkeygaa baa qaadi jiray waan ka heli jiray say maxamed mooge waqtigan kala hadlaya waa sometimes sixtiyadii wey waa lixdamadii heesihii waqtigaan xusin jiray ama la qaadi jiray waxaan aaminsanahay 80% dhalinyarada maanta maba garanaya qaybta koobaad ee barnaamijkeena fanka iyo suugaanta iyo fanaanka maxamuud cali burcana intaa ayaan kusoo gabagabeynaa intaan isugu iman doono qaybta labaad ee barnaamijkeena fanka iyo suugaanta iyo taariikhda fanaankaasi waxaan idinku dhaafayaa heestan idinku soo maqan oo ka mid ah heesaha fanaanku qaadatan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ويتغال عناكيو وقشيتي وحيراتيو هبكايو فيلاتي يدقالو هدي الكسرادي قاقتال هادي ميسيدادي ويه ويلي وشادرتي هادي ما يصير ذي وهي وشادرتي عيشان ركي هوري وكيلي بوكسينا ذا هلا ولا سيكاي انتي شهاب الرغبو لما الحضر إسلك قمر تيري حلو ميلو كلاهين هدك عالو هدي ولك لما الحضر إسلك قمر تيري حلو ميلو كلاهين هدك عالو هدي قبري هدي هدي قالو هدي هدي قبري هدي عدندي حبلها كاي مجي واحد فدفرك مجي نوح بارتبي مجي نوح الرجال هدي قالو هدي مسحوب على نغن واركه إلى كراكه حولي ويدم فيس مسحوب على نغن واركه إلى كراكه حولي ويدم فيس لما الحضر إسلك قمر تيري كنا مهينو كلاهيري هدق عالو